qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjirhkan kalida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan dad meelaha qaadka ku cunaan aragto marka hore ee bahalka la bilaabo wala wada farfaraxsan yahay markuu si fiican jirka u galana sheekada iyo hadalka badata marka dambana waa la kala wada aamusaa ninba meel buu gaar isaga jeestaa uu aamusaa waa markuu bilaabmo bay leeyihiin euphoriadu inay degto marka drowsinessku waa markuu ku bilaabmo qof waliba inuu gaar u aamuso hadhow markuu ka luqluqdo inuu meelaha finfindhicisho ama keligii meel istaago waxyaabaha ay leeyihiin uu sababaa waxaa ka mid ah sonkorta jidhka baallada ku jira tribinoidska ku jira daraaddeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu yahay waayo sonkorta jidhkooda ayuu tiro badiya Soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraabay moodayaan xanuunada psychologicalka qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idraabka nafsiga ama waxaan imika Soomaalidu ay buufiska u bixisay qofka codad maqla ama xataa dadka qaarkood paranoid wuu dhaafaa schizophrenia buu la gaadhaa oo ah inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo oo yiraahdo waa la xamanayay qof laba qof meel iska fadhiyo yiraahdo maxay imaagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay ugu hadal hayseen cathinonka maadada la yiraahdo mawaada ugu khatarsan ku jirta ah marka hore lama garanin laakiin waa lagu qanci kari waayay inay cathin qura waxa ku jira ay tahay haddana wixii kale ku jiray waa xoog loo sheegi kari waayay ama la garan kari waayay waayo waa lagu qanci kari waayo cathinku waxa uu ugu badan yahay inta la tuuro marka haddii waxa loo cunayaa ay tan tahay bay leeyihiin maxaa loo tuuraya ma yada aad loo cuno garaabadan weyn iyo u shandheera u baalka samaysan iyo kuwaasay ku badantay intan yara curubta la goosto kuma badna su'aasha isweydiinta le waxay noqotay marka war haddii bahalkan cathin uu yahay waxa loo cunayaa maxaa intii la tuurayayna ku badiyay intan la cunayana ku yareeyay waa inay jirtaa wax kale oo intan yari ay wadato gaara taas waxay keentay in baxtiga dib loogu noqdo 1975 ayay marka isolate gareeyeen soo saareen maada la yiraahdo cathinon inay ku jirto 1978 na molecular structure-keeda ayaa la soo bandhigay oo waxay reciprocal u tahay waa amphetamine natural amphetamine bay ku tilmaamaan waa amphetamine muraayada chemicals ay u samaysantaa dib muraayad loo dhigo qaabkay u soo baxayso ayuun bay u soo baxaysaa bay yiraahdaan ama westernku inta badan oo dhulka wax lagu baadhayo qaadkuna waqti badan la soo saadayo waa maada aan joogisteedu badnayn 48 saac kadib cathin iyo neuroephedrine bay isu bedeshaa waa 48 saac marka geedka laga soo jaro oo qura ayay sideedii u joogi kartaa wixii ka dambeeya waxay dhahdaan nimanka qaadka warrama qaadka waxa la saaro dhami way dheereeyaan sababta ma garanaysaan dii dameer la saaro dii awr la saaro dii gaadhe la saaro wax kastoo la saaro waa la eriyaya waxa weeyaan maadadan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaarsiiyo maadada tan inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ee hore u gaadho waa la soo duuduubaa oo berigii horena caleen muusiya waxbaa lagu soo duuduubi jiray amaba si moisture-keeda iyo waxeeda loo ilaaliyo waayo maadadani hadday iftiinka la kulanto ama oxygen-ka ay la kulanto markiiba way isbedeshaa qolada qaadwalaha waxaa ka maqashaan kala furfuro ma jecla inay cunaan waa mid rabdada nasiib ay dhahay mid hadda duuduuban waayo kan duuduuban cathinontiisiiba ayaa u ilaashan laakiin haddii la furfuro oo la baadhbaadho kolba dabadda loo soo bandhigo oo uu iftiinka la kulmo ama oxygen badan la kulmo chemical structure-kiisiiba isbedelaya marka cathin bay noqonaysaa ama neuroephedrine bay isu bedelaysaa oo cathinon bay ka baxaysaa marka waa unstable bay dhahdaan maaddo ah maadaama ay maaddo unstable tahay waa in qaabka loo kaydinayo qaabka loo dadejinayo qaabka qofka loo gaarsiinayo 48 saac hadduu dhaafo daragii loo baahnaa maaha waa inuu waqti fudud lagu geeyaa cumuuman 40 maaddo wax ku dhadhow baa ku jira tanise waa maadada ay drag ahaan u leeyihiin waa u khatarsan tahay waayo
dunida badhna drugska herarkiga ay kala leeyihiin qaybta saddexaad bay ku jirta maraykankana qaybta afraad buu ku daraa laakiin mawaad kalena waa ku jiraan maalan tanic acid baa ku jirta tanic acidka waxa weeyaan waa acid dhan lagu magdiyo haragga kan qaadka cuna waxaan ilku uga daataan ama dibnuhu caddaadaan ama waa nin acid haragga lagu magdiyo ee qudhunka lagaga gooyo dee afka ku walaaqaya that's why uu dhacayso waxa kani waa sababaha ku keena inta badan ulcerku ku dhaco waxyaabo badan oo kale ku jira laakiin maadada tani cathinonka la yidhaahdaa chemically waxay dhahaan laba shay bay sababtaa wax degdega iyo wax long term waxyaabaha degdega ay keento waxaa ka mid ah qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjidhkan kelida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan firkanaxaasi wuxuu yahay qofku markuu baadadatani jidhkiisa gashay koowaad waxaa bilaabmaya firkanaxu waa qofku markuu dagaal maalan markaad u diyaargaroobayso kale qofku markuu dagaalamayo jidhkiisa maxaa isbedela waxaa isbedela wadna garaacistiisa badata si aad enerjigu xoog u heli karto waxaa isbedela bay yidhaahdeen yacni waxyaabo badan oo jidhka ka mid a ayaa isbedelu ku dhaca marka maadada tani markay jidhka gasho xididadu way yaraadaan waayo waxaa loogu talagalay qofku hadduu dagaal galo xididku hadduu ballaadhan yahay dhiig badan baa kaa qubanaya ilahay baa kuugu talagalay marka aad dagaalamayso in xididkaagu yarado si aan dhiig badani kaaga quban mawaadda sameeya maxaa la yidhaahdaa bahashan la yidhaha xinjiraha way diyaargaroobaan si haddii nabar kugu dhaco qofka qaadka cunaya instantka koowaad wuxuu la mid noqdaa sidii qof dagaal galayoo kaleu jidhkiisu u react garaya marka waxa isbedela waxyaabo tiro badan leh effectska ay sheegaan markaa waxaa ka mid ah garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota temperatureka jidhkaoo kor u kaca blood pressurekaagoo kor u kaca qofka euphoria taga ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxaa bilaabma bay yidhaaheen euphoriada marka uu gaadho marka hore maadada tani nuso saaca hore waxay ku sii jirtaa weli inuu jidhku nuugus ku sameeyo laakiin markuu nuugustaa jidhku ku sameeyo uu jidhka ay gasho waxaa bilaabma wakhtiga hadalbadnida qolada qaadka cuntaa marka hore bahalka lagu goostaa cabbaan marka la joogaa sheekada isku duba dhacdaa markaasaa la wada hadlaa waxay dhahdaan maadadani waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku talkative isu bedelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay dhahdeen manic behavior ama hyperactive buu noqdaa dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyiinaad u fiirsatay midi garaabadan agtiisa taallu googooya qaar qor yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yani waa manic behavior bay dhahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihin qofku inuu jidhkiisu controolku ka lumo qaybaha qaar ka mid a ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive uu noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabahay samaysa waxaa ka mid a bay yidhaahdeen xiidmaha iyo qaybaha kan way seexisaa muscle contractionka release baa ku dhaca taasi waxay sababtaa constipationkan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca baasiir baa ku dhaca yacni xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxaa ku dhacaba la yidhahdo qofku wakhtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yaro daayo wakhti yarka uu ka baxo hallucination baa ku dhaca bay yidhaahdeen inuu waxyaabo sasawiro waa waxaanay soomaalidu dubaabka tidhaahdo soomaalidan maqalqolada qaysa markay yidhahdaan qaad baan waayo dubaab baa cunay iyo kan baa dhacay waa hallucinationiskan bay yidhaahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxaa ka mida bay yidhaahdaan hadduu qofku marka uu iska daayo tremor ba ku dhacba isagoo iska fadhiyo inbaa kolba jidhka meele dhaqaaqda uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jidhku dhaqdhaqaaq badan uu sameeya nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan